kulan wacan daawadayaal halkan waa warside ku soo dhawaada qodobada wararkaan idin diyaarinay waxaana ka mid noqonaya dowladda federaalka Soomaaliya oo digniin culus u dirtay xubnaha beesha caalamka iyo maamulka Puntland gaar ahaan Saciid Deni waa maxay waxa uu Fahad Yaasiin u ballan qaaday wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo shalay si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Balad Xaawo kadib heshiis uu la galay madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya wararka ayaan idinku soo gudbin doonaa maxaa ka soo kordhay shirkii u dhaxeeyay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada halka ay weli dibad joog ka yihiin Saciid Deni iyo Axmed Madoobe qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan ayaanu idin soo gudbin doonaa daawadayaal fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka subscribe saar la wadaag asxaabtaada oo fura gambaleelka si aad u noqoto qof ugu horeeya ee hela wararka iyo macluumaadkan halkan soo gelino hagaag daawadayaal ku soo dhawaada faahfaahinta qodobadii aad hordhaca ku daawateen aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa digniin adag u dirtay xubnaha beesha caalamka gaar ahaan safiirada ku sugan gudaha dalka iyo madaxweynaha maamulka Puntland iyo madaxda ugu sareysa maamulkaasi ee Puntland loogana digay arrin halis ku ah shacabka ku dhaqan maamulkaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa ku adkeeyay danjiirayaasha ka howlgala gudaha dalka ilaalinta madaxbanaanida iyo qarannimada shacabka iyo in dowladda Soomaaliya loo daayo arrimaheeda gudaha waxaana uu ka digay wasiir Dube in aan la isku dayin in wax loo meeriyo ama wax lala maamulo madaxda qaranka Soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in qoraalada ay soo saareen safiirada ku sugan gudaha dalka qaarkood ay ka baxsan yihiin shuruucda iyo curfiga diblomaasiyadeed isagoona xaqiijiyay in dhaqanka noocaas oo kale aysan aqbalayn shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed geesta kale wasiir Dube ayaa ugu baaqay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee aan ka soo qayb gelin shirka oo maanta galay maalinkiisii saddexaad ee ka soconaya magaalada Muqdisho waxaana uu ku booriyay in ay ku soo biiraan shirka ayna qaataan doorka iyo mas'uuliyadda qaran ee ka saaran si ambaqaadida hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka iyo doorashooyinka dhinaca kale dowladda Norway ayaa raaligelin buuxda ka bixisay qoraal lagu daabacay koontada ay ku leedahay Twitter-ka kaas oo ay ku dureysay dowladnimada Soomaaliyeed waxaana ay si cad u sheegtay in raaligelin buuxda ay siinayso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed isla markaana gabi ahaanba laga saaray qoraalkaas koontada Twitter-ka ay ku leedahay dowladda Norway gaar ahaan safaaradda sidoo kalena ay dowladda Soomaaliyeed ku dhiirigelisay sida habsamida leh ay uga shaqeynayso isu soo dhaweynta shacabka Soomaaliyeed balse kula talisay in dowladda Soomaaliyeed aan sinaba meel uga bixin heshiiskii 17 Sebtembar ee lagu gaaray Muqdisho sanadii tagtay ee 2020 isla markaana ku dhiirigeliyay isu soo dhaweynta dhinacyada ka maqan shirka ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wax aad loogu xumaado ku tilmaamtay falkii foosho xumaa ee ka dhacay magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag oo ay ciidamada amniga Puntland si ulakaca xoog iyo xabad u adeegsadeen bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo sameynayay banaanbax nabadeed war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri fal kasta oo waxyeelo loogu geysanayo shacabka hubka aan wadan waa mid aan la aqbali karin dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku baaqaysaa ilaalinta nabadda iyo xasiloonida shacabka lana ilaaliyo qulubta shacabka Soomaaliyeed magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag waxaa shalay ka dhacay dibadbax lagu taageerayay madaxweynaha waqti xileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana looga soo horjeeday siyaasadda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo in muddo ahba ragaadinayay deegaanada maamulkaasi Puntland dibadbaxyaasha ayaa waxaa hogaaminayay xubno ka tirsan golaha wakiilada maamulka Puntland oo gaaraya 8 xildhibaan kuwaas oo sitay boorar ka dhan ah siyaasadda maamulka Puntland gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni tallaabadan caburinta ee dowladda ay ku eedeysay maamulka Puntland ayaa noqotay mid ku soo laabatay deegaanada maamulkaasi waxaana maamulka Puntland lagu amray in arrinkaasi ay ka feejignaadaan dowladda Soomaaliya ayaa cadaadis xoogan saaraysa madaxda maamulka Puntland iyo Jubbaland kadib markii ay banaanka ka istaageen shirkii ay u yimaadeen magaalada Muqdisho ee ahaa si ambaqaadida iyo xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee caqabadaha ku horgudban isla markaana qaarkood ay dhaliilsan yihiin hannaanka iyo habka ay wax u wado dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland ayaa haatan isna wajahaya culays aad u xoogan oo siyaasadeed kadib markii mid ay u kala baxeen siyaasiyiintii u dhawaa waxaana hadda lagu soo warramayaa in
General Abbas oo aad ugu dhawaa madaxweynaha maamulka Jubbaland uu gabi ahaanba isaga baxay maamulkaasi isla markaana uu garab taagan yahay Cabdirashiid Janan oo shalay tagay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado isla markaana heshiis dhaba la qaatay dowladda federaalka Soomaaliya. Faahfaahin dheeraad ah ayaa arrinkaasi ka soo baxaya ee ku aadan Cabdirashiid Janan kadib markii taliyaha hay'adda nabad sugidda Faad Yaasiin Xaaji Daahir iyo wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Nuur Janan kulan ku dhex maray degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado. Kulankan oo ka dhacay gudaha magaalada Balad Xaawo ayaa sida ila xogogaala inoo sheegeen waxa ay labada mas'uul uga wada hadleen heshiiska cusub ee dhex maray wasiirka iyo dowladda federaalka iyo sida labada dhinac ay uga wada shaqeynayaan arrimaha maamulka Jubbaland. ila ku dhow wasiir Janan oo si hoose ula hadlay Warsida TV ayaa u xaqiijiyay in wasiirka loo ballan qaaday in damaanad loo siin doono inuusan wax dhib ah kala kulmeyn dowladda inta uu ku dhex nool yahay harka dowladda amnigiisa ay si weyn u sugi doonto. Wararka qaar oo aan helnay ayaa cadeynaya in shalay galinkii dambe wasiir Cabdirashiid Janan loo soo qaaday magaalada Muqdisho waxa uuna hadda degan yahay xarunta nabad sugidda ee Habar Qadiijo oo hoy iyo xafiisba u ah taliyaha hay'adda nabad sugidda Faad Yaasiin Xaaji Daahir oo halkaasi si weyn loogu ilaaliyo. Sidoo kale warar kale ayaa sheegaya in wasiir Janan uu ku wajahan yahay dalka Turkiga halkaas uu ku marayo baaritaan caafimaad maadaama uu muddo duurka ku jiray. wasiirka oo bulshada ku dhaqan Balad Xaawo si weyn ay u soo dhaweysay ayaa waxa uu kula hadlay Balad Xaawo waxaana uu sheegay ujeedka uu isu soo dhiibay ee dowladda ay tahay in xal laga gaaro dagaalka daba dheeraada ee ka taagan magaalada Balad Xaawo kaas oo salka ku haya arrimo qabiil isla markaana gabi ahaanba la soo afjaro. wasiir Cabdirashiid Janan ayaa la filayaa in uu noqdo taliyaha ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gado isla markaana ciidamadiisu ay dagaal ku qaadi doonaan goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolkaasi gaar ahaan gobolka Gado iyo Jubbada Dhexe. waxaana lagu wadaa in gacanta ay ku qabtaan degmada Bu'aale oo caasimad u ah maamulka Jubbaland halkaas oo la filayo in maamul cusub ay dowladda federaalka ka dhisto. dhinaca kale wasiirka warfaafinta maamulka Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay Cabdirashiid Janan aan wax saameyn ku yeelan doonin maamulka Jubbaland welina mowqifkooda arrimaha gobolka Gado uu wili taagan yahay. wasiirka ayaa sheegay in waqti dambe ay ka war heleen in uu Cabdirashiid Janan wada hadal kula jiro dowladda Soomaaliya ha yeeshee shaqadii uu ka tagay ay wili sidiisii u socoto. maamulka Jubbaland ayaa ku dheeraanin ka hadalka go'aanka wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan uu kula heshiiyay dowladda Soomaaliya ha yeeshee shalay xilka uu ka qaaday madaxweynaha maamulka Jubbaland ee ahaa wasiirka amniga maamulkaasi Jubbaland oo muddo uu soo ahaa Cabdirashiid Janan. markan qasaare kala duwan ayaa ka dhashay hoobiyaal lagu ganay saacadihii la soo dhaafay xaafado u dhow xerada Xalane ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ka tirsan. hoobiyaasha oo jugtooda laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku dhaceen xaafadaha Oobasiibka oo u dhow xerada Xalane oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gaar ahaan laanta Gabiyo waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadka halkaasi ku sugan. dadka deegaanka ayaa waxa ay ku warameen in ilaa 4 hoobiye ay soo dhaceen isla markaana mid kamid ah hoobiyaashaasi uu ku dhacay guri ay deganaayeen dad shacab ah. mid kamid ah dadka degan xaafadda ay hoobiyaashu ku dhaceen ayaa sheegay in uu geeriyooday walaalkiis oo lagu magacaabi jiray Cumar Maxamed Amiin iyo cunug uu dhalay halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 5 ruux oo kale. ka soo dhaawaca iyo dhimashada ay geysteen hoobiyaashii ku dhacay xaafado u dhow xerada Xalane ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa waxa burbur xoogan soo gaaray guryo jiingada ah oo uu ku dhacay hoobiyaha. ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa tagay xaafadaha ay hoobiyaashu ku dhaceen waxaana dadka ku dhaawacmay la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho si halkaasi loogu dabiibo. xeyndaabka xerada Xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay degnaa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waana markii labaad hoobiyaal lagu weeraro xerada Xalane inta ay Muqdisho joogaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. dhowr jeer oo hore ayaa weerar hoobiyaal ah waxa lagu qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo xerada Xalane waxaana mas'uuliyadda weerarkaas sheegtay al-shabaab oo iyagu dagaalka kula jira dowladda federaalka Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wararkii aad ka daawanayseen Warsida TV waa naga intaa. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka
saar subscribe la wadaag asxaabtaada oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka iyo macluumaadkan halkan soo gelino. Nabadgelyo.